aan ku horeeyay khilaaf siyaasadeed oo sii xoogaysanaya ayaa ka soo dhex ifbaxay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta shaaca ka qaaday in nuqulka afarta xeer ee dhamaystirka doorashooyinka ee la horgeeyay golaha shacabka uusan ahayn kii lagu heshiiyey ee loo gudbiyey guddoonka labada aqal. qoraal ka soo baxay xafiiska Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu sheegay in nuqul been abuura oo ku saabsan xeerkan uu soo diyaariyey guddiga labada aqal loo gudbiyey golaha shacabka. waxa dhacday in dukumeenti ka duwan kii loo soo gudbiyey guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee la xiriiray afartii xeer oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah loo qaybiyey mudanayaasha baarlamaanka 17 bishan Juun sanada 2020 ka doodistiisuna haatan ay ka socoto golaha shacabka laguna baahiyey warbaahinta dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in nuqulkii rasmiga ahaa lagu sameeyey ku takrifal sharci darro ah oo aad u baaxad weyn, wuxuuna ku eedeeyey guddoonka golaha shacabka inay arrintaas ka dambeeyaan. guddoonka golaha shacabka waxay qaateen wax aan ku tilmaami karo go'aan siyaasadeed oo sharciyada ka dilaya nidaamka doorasho ee dalka, isla markaana dhaawacaya nidaamka xeer dejinta dalka ee ku qeexan madaxa afaraad ee cutubka 6 ee dastuurka ku-meel gaarka dalka, kaas oo xeerinaya habraaca xeer dejinta baarlamaanka federaalka ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare. sidoo kale wuxuu intaas ku daray gudoomiyaha aqalka sare inuu ka digayo cawaaqib xumo ka dhalan karta arrintaani, isagoo dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo ka doodista sharcigani. shir guddoonka golaha shacabka ayuu ugu baaqay inay si degdeg ah ugu laabtaan nuquladii saxda ahaa ee guddiga wadajirka ee labada aqal ay soo diyaariyeen. go'aanka maanta ka soo baxay Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sii cakiraya khilaaf siyaasadeed oo xilliyadii dambe la sheegayay inuu u dhaxeeyo shir guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. geesta kale ku dhawaad 140 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta mooshin u gacan geliyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. mooshinkan oo ay saxiixeen 135 xildhibaan ayaa waxa uu ku saabsan yahay matalaadda gobolka Banaadir, waxaana xildhibaanadan ay soo jeediyeen ama ay mooshinkooda ku sheegeen inay doonayaan matalaadda gobolka Banaadir in la gaarsiiyo ilaa 13 xubnood oo aqalka sare ay ku yeeshaan. xildhibaanada golaha shacabka ayaa shalay ka dooday matalaad siyaasadeed oo yeesho gobolka Banaadir, waxaana lagu wadaa maalmaha soo aadan arrintan go'aan golaha shacabku inay ka qaataan. xildhibaano badan ayaa ku dooday inaan 7 xubnood gobolka Banaadir aysan ka yeelan aqalka sare, ha yeeshee mooshinkan ayaa u muuqda mid lixaad leh, isla markaana muujin doona xubno sare gobolka Banaadir aqalka sare inuu ku yeesho. وهاجك داوديال قضبة دورة ينو هرسنو يكمديهين دولة فدرال كوكو دواد 60 مليون لوغو داقي كدمركي هبمامل وناكسن لوغو أماني مدن محمد عبد الله فرماجة دولة هجاميو هيا شيء حكومة فدرال كايا قوان جيس ملكة قادتي خلاف سياسيات وأودحيا دولتها إثيوبيا يا مصر قوان كانوا كسابسن تلابو دولة إثيوبيا بيحرين وقسمين يسوي بيجا النيل. waxaana jaamacadda carabtu ay soo jeediyeen in lala safto dawladda Masar, ha yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tallaabo dhexdhexaadnimo ka qaadatay. dawladda Soomaaliya ayaa diiday inay taageerto qaraar ka soo baxay jaamacadda carabta oo lagu taageeri lahaa mowqifka Masar ee ku aadan biyo-xireenkay Itoobiya ka sameynayso webiga Niil. qoraalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay inay Itoobiya dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ilaa arrintan ay ka heshiinayaan dawladaha webiga oo maro sida Suudaan iyo Masar. waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyadani inay ka fogaadaan qaadista ficilo sii xumay kara xaaladda, isla markaana Addis Ababa aysan buuxin biyo-xireenka inta laga heshiinayo ama go'aan laga gaarayo. qaraarka jaamacadda carabta oo ay soo gudbisay Masar isla markaana ansixiyeen wasiirada arrimaha dibadda wadamada carabta marka laga reebo Soomaaliya iyo Djibouti ayaa waxa lagu meel mariyay shir muuqaal ah oo aalada internetka ka qabsoomay.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hadal ka jeediyay shirka ayaa ku baaqay in saddexda dal xiisadda webiga Niil ay yareeyaan isla markaana wax waliba wada xaajood lagu dhameeyo sida aynu ognahay webiga Niil waxa uu nolol u yahay Masar iyo Suudaan wuxuu sidoo kale horumar u yahay dadka Itoobiya aan dirisnahay sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa Masar Suudaan iyo Itoobiya inay xiisadda yareeyaan oo ay dhammaan arrimaha taagan ku xaliyaan miiska wada hadalka isla markaana ay gaaraan heshiis u wada faa'iideynaya Masar Suudaan iyo Itoobiya sidaas waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cawad ayaa ku baaqay in la dhiso guddi ka kooban dalalka Sacuudi Carabiya Cumaan Soomaaliya iyo Djibouti kuwaas oo xal u raadiya khilaafka iminka saddexdan dalka dhaxaloosan Itoobiya ayaa ku nuuxnuuxsatay bisha July ee soo aadan inay buuxi doonto biyo xireenka webiga Niil iyadoo Masar ay aaminsan tahay haddii qayb ka mid ah biyaha Niil la leexiyo inay yaraan doonaan biyaha soo gaara maadaama 90% bulshada Masar biyaha webiga Niil ay ku nool yihiin wararka arrimaha Soomaaliya ayaa la socotaan warqad TV ayana daawanaysaan bangiga adduunka oo kamid ah bangiyada caalamka ayaa taageero lixaad loo dhaqaalo waxa uu ugu yabohay dawladda federaalka Soomaaliya bangiga ayaa ansixiyay in lacag dhan 55 milyan oo dollar la siiyo dawladda federaalka Soomaaliya lacagtan bangiga adduunka ugu deeqay dawladda federaalka ayaa lagu kabi doonaa miisaaniyadda dawladda sanadkan 2020 ujeedka lacagtan ayaa sidoo kale ah in lagu la dagaalamo dhaqaale yarida Soomaaliya soo wajahay taas oo ka dhalatay cudurka safmarka ah ee coronavirus wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa arintan ka mahad celiyay waxaana uu tilmaamay in ku timid hab maamul wanaagsan oo dawladda federaalka lagu amaanay miisaaniyadda inay u maareysay waxa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalka lagu kabayay banka adduunka ku kabayay oo 55 milyan ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu nolol shaqeeyay adduunku gaar ahaanna bangiga adduunka nolol shaqeeyay iyo hay'adda lacagta adduunka IMF lacagtana markaa waxay ka mid tahay waxyaalihii wanaagsanaa ka soo baxay teen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheerayd bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhaxeeya 55 ama dawladda federaalka ahaato ama dawladaha xubnaha ka dalka dawladda federaalka ahaato intaas ay tahay waxa ay ku xidhan tahay waxa weeyaan budgetkii hoos u dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba oo keenay dakhliga hoos u dhacay caawimo ay kabaysa weeyaan kab ah marka runtii aad baan ugu faraxsanahay waa ka soo shaqeynay waa la soo shaqeynay waxaan isla garanay marka kabka loo baahay inta yahay imika haddana dhawaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 aw socoto iyadoo la eegayo marka waxay noo ballan qaadeen intaas u socono reformka wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF iyo daba joogaan iyo EU saddexda afartaas ugu waaweyn runtii marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aad uga shaqeynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaan ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunkan noo imanin inaan isku filaasho gaadhno oo really inagu aan ku filaan karno kharashka dawladdan lagu hangaranayo inaan ugu filaan karno